munaasabada ay soo qaban qaabisay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe iyo wasaaradaha dekedaha ee dawlad goboleedyada ayaa lagu daafuray 28 sano kadib waaxda maamulka badda. Waxaa ka hadlay munaasabada mas'uuliyiin kala duwan oo bogaadiyay furitaanka xafiiska maadaama uu muhiimad weyn u leeyahay maamulka badda. Wasaaraddu ay dadaal dheer ku bixisay sidii uu u shaqayn lahaa xafiiskaasi. Wasiirka wasaaradda dekedaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cumar Axmed Aadan oo ku hadlay afka wasiirada dawlad goboleedyada ayaa ka hadlay. intaas kadib waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan soo dhaweynaynaa hawsha ay qabatay wasaaradda. shaqadaas oo muddo badan la soo waday anoo ku hadlaya magaca maamul goboleedyada. hawsha soo ku faraxsanahay waana taageeraynaa waana la shaqaynaynaa. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo ka hadlay munaasabada ayaa dhiirigeliyay in xafiiskan dib loo howlgeliyay. kaliya waxaan rabnaa inaan hortiina ka marxaati kacno anagoo amaanayna wasaaradda dekedaha iyo khubarada iyada ee la shaqeeya ama ka tirsan ee Soomaaliyeed. wasaaradda maanta khubaro ka fadhida halkan workshopyo dibadda oo Djibouti, Rwanda yani wax badan ayam oo sidaas oo kale fursad noo siisay inaan itaabsi waxa aan qabanayno ayagoo halku dhigeena u yahay aan ku qanacsanahay raalina ka nahay qaabka ay wasaaradda u shaqaynayso. markuu waadi mar labaad waanu mahadcelinaynaa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda. wasaaradda kalluumaysigana sanadkii horena waxaan bixinay ruqsado kalluun, sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan bixino annagoo la shaqaynayna wasaaradda dekedaha gaadiidka badda gaar ahaan waaxdan maanta dib loo howlgelinayo. waxay naga ilaalin doonaan maraakiibtaas aan siinayno shatiga badqabkooda iyo noocooda iyo haddii yihiin kuwa biyaada wax uu baabi'inayo. marka wada shaqayntaas dhow insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noo ahaato mid mar walba aan wada shaqeyno. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac oo gabagabadii ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay muhiimadda xafiiskan uu leeyahay dalka iyo dadaalka wasaaraddu ay ku bixisay sidii loo heli lahaa. waaxda maamulka badda Soomaaliyeed ma ahan xafiis cusub oo xagga badaheena ah waa wax hore u jirtay tan iyo waqtigii dawladda dhexe Soomaaliyeed balse la burburtay hay'adihii kale xiliyadii ay socdeen dagaaladii sokeeye. howlgelinta waaxda maamulka badda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay hadafyada ay tiigsanaysay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo howlgelinta waaxda oo meesha ay maanta ay marayso ay tahay in ay la socoto ama ay ka warqabto ama ay meeshaba ka baxdo la socod la'aanta iyo ka warqab la'aanta dhaqdhaqaaqa badda Soomaaliyeed. Maayda Muxiidiin Dublaawe warbaahinta qaranka Muqdisho.